Wiil laba jir ah ayaa waxaa laga soo tuuray dabaqa toddobaad mid ka mid ah guryaha dabaqyada ah ee ku yaala duleedka magaalada Copenhagen ee caasimadda waddanka Denmark. Arrintan ayaa booliiska waxaa ku soo wargeliyay dadka deriska la ah guryahaasi dabaqyada ah. Waxa ayna sheegeen in aroor hore ay arkeen wiilkan laba jirka ah oo meyd ah oo yaala mid ka mid ah dabaqyada ku yaala duleedka magaalada Copenhagen. Booliiska iyo hay'adaha gurmadka degdega ah oo u gurmaday ayaa markii ay goobta waxa ay la kulmeen laba jirkan meydka ah, iyadoo lagu soo waramayo in ay u soo qabteen nin 32 jir ah oo ay hadda xabsiga u taxaabeen. Booliiska ayaa sheegay in 32 jirkan uu qirtay dembiga ah in uu wiilkan laba jirka ah ka soo tuuray dabaqa toddobaad, isaga oo aan faahfaahin ka bixin sababta ku kaliftay in saqiirkan uu ka soo tuuro dabaqa toddobaad halkaana uu ku nafwayo. Waxa ayna booliisku ku waramayaan in 32 jirkan maxkamad la soo taagay laguna xukumay 4 toddobaad oo xabsi ah inta ay baaritaanada ku saabsan kiiskan iyo sababaha keenay in uu saqiirkan u dilo laga baarayo, lagana ogaanayo, lagana xaqiijinayo. Guryahan dabaqyada ah ayaa lagu soo waramayaa in ay ku yaalaan duleedka magaalada Copenhagen ee caasimadda waddanka Denmark, halkaasoo la sheegay in ay ku yaalaan dabaqyo badan oo ay qaarkood gaarayaan ilaa 15 dabaq. Booliiska ayaa sheegay in ay baaritaano aad u xooggan kiiskan ka wadaan oo ayna u qaateen si dhab ah. Waxa ayna sheegeen in ninkan 32 jirka ah ay baaritaan xooggan isaga qudhiisa ku hayaan sababaha ku kalifay in uu saqiirkan laba jirka ah ka soo tuuro dabaqa toddobaad, isaga oo ku talagalayo in uu ka takhaluso oo uu dilo saqiirkan yar. Arrintan ayaa dad badan oo reer Copenhagen ah waxa ay ku noqotay fajiciso iyo layaab iyo amakaag, iyadoo lagu soo waramayo deriska iyo dadweynaha ku dhow xaafadan Hooje ee duleedka magaalada Copenhagen ku taalo ay arrintani murugo, walwal iyo walbahaar iyo caloolxumaba ka muujinayaan. Dhacdadan ayaa waxa ay ka mid noqotay dhacdooyinka murugada iyo xanuunka xambaarsan kadib markii saqiirkan laba jirka ah si ku talagal ah looga soo tuuray dabaqa toddobaad si loo dilo. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.